السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتها بون دمانتين داوديال كسو دوادا هالهيس ميديا qodobada warka ugu doorka roona waxaa ka mid shirkadaha kiyay isticmaalka diyaaradda Boeing 737 Max wiil yar oo warqad u qoray shirkad diyaaradeed oo jawaab si degdeg ah ku helay shirkadda diyaaradda Ethiopian Airlines ayaa dejisay dhammaan diyaaradaheeda nooca loo yaqaan Boeing 737 Max kadib markii mid ka mid ah oo ay shalay ku dhacday dalka Ethiopia oo ay ku dhinteen 157 qof madaxa shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines lagu magacaabo Tawele Gabre Mariam ayaa sheegay in wax kasto ay sababi karaan in diyaaraddaasi ay dhacdo waxa kale oo uu sheegay in shirkadda diyaaradda Ethiopian Airlines ay ka mid tahay shirkadaha diyaaradaha ee ugu wanaagsan guud ahaan caalamka sidoo kale dalka Shiinaha ayaa amray in shirkadaha diyaaradaha dalkaas inay dejiyaan dhammaan diyaaradaha magacoodu yahay Boeing 737 Max sidoo kale shirkadda diyaaradaha ee Cayman Airways oo ka shaqeysa dalalka Caribbean-ka ayaa dejisay dhammaan diyaaradaheeda nooca loo yaqaan 737 Max diyaaradda Boeing 737 ayaa sidoo kale ah nooca diyaaradda ee ku dhacday badda Java ee dalka Indonesia bishii Oktoobar 2018 markii ay ka kacday magaalada Jakarta ee xarunta wadanka Indonesia waxaana ku dhintay dad gaaraya 189 qof ma ku riyoonaysaa inaad yeelato shirkad diyaaradeed hadday jawaabtaadu tahay haa fadlan nala dhageyso qisadan ka dhacday dalka Australia hagaag wiil yar oo 10 sano jir ayaa talada ugu wanaagsan ka raadiyay halka ugu sareeyay uu bini'aadamku ka raadiyo Alex Johnson waa wiilka yar ee ku dhashay dalka Australia ayaa warqad u qoray maareeyaha guud ee shirkadda diyaaradaha ee Qantas ee dalkaasi laga leeyahay wiilkan ayaa hadalkiisa waxa uu ku bilaabay fadlan hadalkayga dhageyso oo dhab u qaado ayuu yiri wiilkan yar oo warqadiisa aad loogu faafiyay guud ahaan baraha bulshada agaasimaha guud ee Qantas Alan Joyce ayaa ka soo jawaabay warqadda wiilkan wuxuuna ku marti qaaday kulan dhex mara labadooda wiilkan yar ayaa sheegay in uu ku riyoonayo inuu furo shirkad diyaaradeed oo uu magaceedu yahay Ocean Express wuxuuna talo weydiiyay agaasimaha sidii uu ku hirgelin lahaa shirkadaas waxa uu intaas ku daray inuu cilmi baaris ku wado nooca diyaaradda oo ay u baahan yahay iyo tirsiyada diyaaradaha iyo waliba nooca cuntada diyaaradaha dhexdeeda macaamiisha laga siin doono balse waxa uu sheegay in uu la kulmay khasaaro wuxuuna agaasimaha weydiiyay sida looga baaqsan karo in arintaas jawaabta Mr Joyce oo waa agaasimaha guud ee Qantas Airways waxa ay ku noqotay mid la yaab leh balse waa uu mahad celiyay ballanqaadna waa uu sameeyay inuu la kulmi doono wuxuu intaas ku daray caadiyan dadka suuqa nagula tartama waanama weydiiyaan mana siino ayuu yiri hadii ayna weydiistaan balse adiga waad ka duwan tahay waxaan ugu wacan anigaba markii aan wiilka yar ahaa waxaan isweydiin jiray sida ay diyaaradaha u shaqeeyaan iyo suurtagalnimada in shirkad la abuuro